بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا ودين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، maalintii u dambeysay su-aal idin weydiiyey bay dhallinyarta qaarkood aad ii weydiiyeen oo ay yidhahdeen aad umaanaan fahmin, marka bal insha allah inaan wax yar ku celiyo aan jecelahay. waxaan weydiiyey farqiga u dhexeeya nebi iyo rasuul. kolley waxaad sheegteen tacaariif dhowra oo ay ka mid ahaayeen inaad tihahdeen nebigu waa ka loo waxyooday hase yeeshee aan la dirin, rasuulkuna waa kii loo waxyooday laakiin dacwadda dadka inuu gaadhsiiyo la faray. waxaan idinku uhi tacriifkaasi waa tacriif aan sax ahayn, waayo adilada ayuu ka soo horjeedaa. ilaahay baana sheegay nebi iyo rasuulba inuu diray, wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ila idaa tamanaa alqa ashaytaanu fii umniyati. ilaahay rasuul iyo nebi labadaba inuu diray buu sheegay, labadoodiba waa la israaciyey. marka aleeshaan labadooduba waa mursaliin. waxaynu sheegnay sidaasoo kale inaanay suurtagalahayn nin dhan oo loo waxyooday in la yidhahdo iska fadhiyo adiguuni ku cibaadaysan waxyiga lagu waxyooday, innagoon laynoo waxyoonba yaan laynagu odhan iska fadhiya oo laynagu dadka dacwadda gaadhsiiya. man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. tacriifkaasi saa halkaas buu ku khaldamay. tacriifka labaadaad sheegteen wuxuu ahaa inaad tihahdeen nebi iyo rasuul waxaa lagu kala farqiyaa. rasuulku waa ka sharci cusub lagu soo dejiyey, nebiguna waa ka sharci hore oo rasuul hore lagu soo dejiyey sii wada ee markaas waxa weyaan sii faafinaya. tacriifkaasina isna waa khaldan yahan, laba dhinac buu ka khaldan yahay. waayo waxaa jira nebiyo rasuulba aanu ka horrayn, sida nebiyullaahi aadam rasuul ka horreeye oo sharci ka horreeye la yimid miyuu jiraa? isagaaba dee bashar oo dhanba aabbo u ah, rasuulna maahe waa nebi. maca daalika haddana lama sheegin markaasi sharci nebi ka horreeyey oo uu sii waday. nebiyo u dhexeeye nebi nuux iyo nebi aadam miyay jireen mise may jirin? kale waa masale culama isku khilaafeen. markaa nebiyullaahi idriis oo kale ay culimmada qaarkood waxay yidhahdeen aadan iyo wuxuu u dhexeeyey nebi nuux. haddii taasi sax noqoto iyadana waxa weeyaan nebi labaad oo aan markaasi sharci rasuul ka horreeye oo sii waday aanay jirin. waa dhinaca labaaday ka qaldan tahayna waxa weeye waxaa jira rasuul inay yihiin la hubo, maca daalika haddana sharci lagu soo dejiyey aynaan ogeyn, sida nebiyullaahi yuusuf calayhi asalaam inuu rasuul ahaa ilahay baa qur-aan ku sheegay. xataa idaa halaka qultum lan yabcatha allahu min bacdihi rasuula buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala. oo nebiyullaahi yuusuf inuu rasuul ahaa buu ilahay sheegay. maca daalika haddana sharci lagu soo dejiyey ma ogin, bal wuxuu sii waday watabactu millata aabaa'i ibraahiima buu sheegay inuu aabbayaashii markaasi diintoodii uun raacay oo dariiqoodii u hayo ayuu nebiyullaahi yuusuf u sheegay calayhi salaam. kaa sharci cusub laguma soo dejin. labadaa dhinac way ka khaldan tahay. markaas in layahay rasuulku waa ka sharci cusub lagu soo dejiyo, rasuulo aan sharci cusub lagu soo dejin baa jira. nebigana haddii la yidhahdo waa kii sharci hore sii waday, kuwa aanay rasuullaba ka horrayn baa jira. ma garataada? labada dhinac way ka khaldan tahay. tacriifka saxda ah waxaan idinku uri waxa weeyaan in la yidhaahdo waa basharun dakarun xurun min ahli alqura awxa allahu ilayhi min alsamaa wa ursila ilaa qowmin khaalafuu sharca allah. waa marka rasuul loo jeedo. nebi haddii loo jeedana halkeena ugu dambaysa unbaa la odhanayaa wa ursila ilaa qowmin mu'miniina aw muwaafiqiin. intaas farqiga udhexeeya waa intaas. marka macna wuxuu noqonayaa waa bashar oo innaga dee malaa'igna laynooma soo diro, jinna laynooma soo dira, bashar baa laynoo soo diray. qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya, anuu bashar idinkoo kale ayaanahay. qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharun milukum. marka iyagu bashar bay ahaayeen, waa qodobka koobaad. dakarun baa rasuul laga soo diri jiray, sida ilaahay qur-aanka uu ku yidhi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim. adiga hortaa maanaan dirin ilaa rag mooyaane nuuxii ilayhim aanuu waxyoonay. sidaasoo kale axraar ayay ahaayeen oo addoon weligii lama dirin, waayo maba qaadi karaba de xilka nebinimo maba qaadi karayaba.
sidaasoo kale inuu reer magaal noqdo ayaa shardiga ka mida shuruudda ka mida way qof reemiya isaga laftiisu xadaaradii iyo dadka la dhaqankoodii ayaanu markaa la qabsan karaynin ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim min ahli lqura kuwa reer magaala buu ilahay sheegay subxaana wa tacala inay ahaayeen kolay qodobada aan ii sheegay o dhan dhammaantood ishkaal ayaa lagu soo arooriyey laakiin ishkaaladooda waa waxyaala laga jawaabi karo waxaa ku xigta markaasi awxa allaahu ilayhi min asamaa marka afartaa qodob la sheego basharun dakarun xurun min ahli lqura awxa allaahu ilayhi min asamaa awxa allaahu ilayhi min asamaa waxa meesha laga saarayaa kuwa shayaadiintu u waxyooto waayo shayaadiintu waxyi bay leeyihiin kadalika ilahi wuxu uri subxana wa tacaala shayaaiin alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura shayaadiinta jinki insigu isku waxyoodeen waaye marka le awxa allaahu ilayhi min asamaa kuwaas baa meesha laga saaraya wa ursila ilaa qowmin khaalafuu sharca allah waxaana loo diray qowm khilaafay ilaahay sharcigiisa subxaana wa tacaala ama mu'miniin fogaaday ha noqdaan oo intay islaameen laakiin diintii ka tegay oo ka fogaaday ama gaalo gaalnimadooda qirsanba ha noqdaani rasuulku waa ka noocaasiya nebiguna inta dambuun buu kaga duwan yahayo wa ursila ilaa qowmin muwaafiqiin qolo muwaafiqiina oo diinta guud ahaan waafaqsan ayaa markaas waxa weeyaan loo direeyey tacriifka qaybo ka midana waxaa sheegay sheekh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yihahda annubuwaat ayuu markaa ku sheegay inkastoo intiqaadaad ay ku jiraan tacriifkiisa laftiisa waayahay tacriifka imika hadda aynu sheegnay qodobka ugu horeeya aynu yidhi waa bashar waxaa ishkaalaadka lagu soo arooriyey ka mid a ilahay inuu yidhi subxaana wa tacaala allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaahay malaa'igta iyo rususha iyo dadkaba rusul ayuu ka doortaa marka maxaa bashar ugu gaar yeesheen baa layidhi dee waxaynu leenahay inagu rusushaynu ka sheekaynaynaa rususha inaga inoo soo diray baynu ka sheekaynaynaa inagoo ka sheekaymayno kuwa ilaahay howlaha kala duwan u dirsaday laakiin inagu kaynu ka sheekaynaynaa waa kuwa inaga laynoo soo diray kuwa inaga laynoo soo dirayna malaa'ig may ahayn walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajula buu ilaha yidhi subxaana wa tacaala haddaanu malag ka dhigi lahay soo diri lahaa nin baa loo bedeli lahaa si aad u afgarataan ilaa malag ma wayna afgaraneenbe siduu u nool yahay iyo se inuu nool lahay way kala duwan tahayba laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun bay ku nool yihiin inagana xaalkeennu saa maaha waayahay marka la yidhi waa dakar waxaa lagu soo arooriyey dumar badan oo loo waxyooday qur-aanka lagu sheegay waxaa ka mid a wa awxaa rabbuka waxaan jeedaa ilahay wuxu uhi subxaanahu wa tacaala wa awxaynaa ilaa ummi muusa an irdiciih nebi muuse hooyadii waxaanu u waxyoonnay waxaa saasoo kale la sheegay maryam binti cimraan in loo diray malaku jibriil ilahay wuxu uhi faarsalnaa ilayha ruuxana fatamahala laha basharan sawiya qaalat inii acuudu biaraxmaani minka in kunta taqiya qaala inama ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya aleeshaan wuxuu inuu ilaahay u diray malaku jibriil ay sheekaysteen ayuu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala walihaadaaba culimmada qaarkood ku tegeenba inay laba nebi ahaayeen labadaasi dumarka ahaa sida imaamu qurtubi iyo ibnu xasam iyo laakiin sida saxda ah dumar nebi may noqonin waxaana markaasi la yidhi cid kastoo loo waxyooday nebi ma noqoto cid kastoo malag la hadlayna nebi ma noqoto ee nebinimadu waa shay intaa kasii dheeraada oo waxaa jira xayawaanaad ilaahay u waxyooday qur-aanka lagu sheegay wa awxaa rabbuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mima yacrishuun marka waxaynu nahnaa shinniduna waa nebi haddii la yihahdo haddii waxyuun la eego waxay noqonaa shinniduna inay nebi noqoto haddii cid lala hadlay uun la doonana boqolaal ragoo malaa'ig la hadlayeenoo sunnada rasuulka ku soo arooray baa jira oo haddana aan nebi ahayn waxaa ka mid a markaasi saddexdii nin ee alabras waalaqrac iyo markaasi walacmaa in malag loo soo diray buu rasuulku sheegay sala allahu caleyh wasalam haddana nebiyay ahaayeen lama sheegin sidaasoo kale waxaa reer bani israa'iil in badan bay ku badnayd markaasi malaa'igta ay arki jireen oo markaas waxa weye ay la hadli jireen nebiyana laguma sheegin marka dumar nebiya ama rasuula oo la soo diray may jirin sidaasoo kale qodobka saddexaad ee odhanaya xor waa inuu noqdo waxaa lagu soo arooriyey nebiyullaahi yuusuf ilaahay wuxuu sheegay in la iibiyey oo la addoonsaday
إلهي سبحانه وتعالى يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين waxay siisteen daraahim yaroo kooban oo liidata waana iskaga dhaqaajiyeen taana waxaa la yidhi addoonnimo laguma noqdo qof inta iska qabsaday la iibiye addoon laguma noqdo haddii imka adigoo iska lugaynaya hargeysa inta lagu qabsado magaalada adduunka dibadiisa lagaa iibiyo dee addoon saa ku noqon mayside addoonnimadu waxay ku timaadaa waxay yidhaha culimmadu addoonnimadu waa xukmun waa cajzun xukmiyun yalxaqu bilinsaani sababuhu lkufr waa cajzi xukmiya cajis xukun ahaan qofka u haysta oo waxyaalo badanoo qofka xorkii uu samayn kara aanu samayn karaynin waa cajzun xukmiyun yalxaqu bilinsaan insaanka haleela laakiin sababta keenta waa maxay sababuhu lkufru oo gaalnimaa keenta qofku marka hore inta dagaal iyo arrimo noocaasa lagu soo qabsado isagoo gaala ayuu addoon saa ku noqdaa marka dambe hadduu islaamo in la xoreeyo inaan la xoraynba waa suurtagal laakiin marka hore qof xor oo iska socdo muslima ayaa la qabsaday oo la qafaashay taas wax ansaxaya maaha addoonnimada saa laguma noqdo markaa nebi yuusuf dee dulmi baa lagu iibiyey ee addoonnimo saxa may ahayn addoonnimadiisu qodobka afaraad min ahli lquraa iyadana waxyaalaha lagu soo arooriyey waxaa ka mid a nebiyullaahi yacquub nebi yuusuf aabihii markuu nebi yuusuf u sheegayay riyadii uu ilaahay uu fasiray wuxuuhi waqad axsana bi id akhrajanii min assijni wa jaa'a bikum min albadwi ilaahay anigu ii wanaag falay markuu iga soo saaray jeelka idinkana markuu badowga idinka keenay markaa badwiga ma waxaa looga jeedaa wuxuu ka yimid markaasi meel baadiye ah laba qowl bay culimmadu kaga jawaabeen sheekh ilaahi sidiiq xasan khan raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi nebiyullaahi yacquub asal ahaan isagu reer magaal buu ahaa magaaluu ka soo jeeday laakiin wakhtigaa uu u yimid nebiyullaahi yuusuf ee masar ay ugu yimaadeen ayuu meel miye ka soo galay oo meel turkiga ayuu markaa nebiyullaahi yacquub u wareegay oo meel miye ahayd halkaas buu ka yimid buu yihi sidiiq xasan khan tafsiirkiisa sidaasoo kale imaamu alqurtubi raximahullah tafsiirkiisa isana wuxuu sheegay oo yidhi waxa lagaga jawaabay buu ihi markaasi meesha uu deganaa ama magaalada uu deganaabaa badaa la odhan jiray yacquub saa darteed markaasi waxa weeyaan ayuuba magacan badwiga loogu itlaaqeeyey laakiin may ahayn inuu asal ahaan reemi ahaa marka caleeshaan inuu reemi ahaa iyada markaa cidna may odhanin laakiin ama miyibuu wakhtigaa ka yimi isagoo markii soo ree magaala nebi maxamedba miyada waa tegi jiray laakiin asal ahaan meeshuu ka soo jeedaa la eegaya meeshuu ka soo jeedayna magaalay ahayd bay yidhaahdeen kolley ishkaalaadka lagu soo arooriyey kuwaas ayaa ka mid a dee waana masale waasic ahoo darsigeenna oo dhan dee qaadanaysa haddaynu isnaano maanta dhan ka sheekeeya